oo nusuuxna oo niriguurkii nuguur khayre maxay tahay balbalaarkooy labadaana isqabaadee why these two they don't match baby he have to look for another this my sister he have to because he's still young and six back but you are holof you are holof that's why the guy leave mi fahanteen hadda marka Abo Farax iyo Abay Xaliimo sababta ay saan u kala noqdeen hadda idin sheega marka Abo Farax markuu guursaday he don't give up his life for Xaliimo he didn't do that Abo Farax haduu iskuul aadayay iskuulkiisii wuu aadaa Abo Farax haduu maalinta 5 jeer qubaysan jiray wuu qubaystaa Abo Farax hadii uu seexan jiray hurdo badan wali wuu seexdaa Abo Farax gaarigiisa iyo kilkishiisa jibsi kama soo dhacee barafuuna ka carfo Abo Farax jiimka 2 jeer haduu wiiga aadi jiray ama 3 jeer ila wadanka waa la shaqeeyaa time badan lama helay wuu aadaa Abay Xaliimo maalintii guursatay Farax dareemkeedii ay Xaliimo isku qurxin jirtay ma ahayn inay bulshada qurux kula dhex noolaato umada indhaha aysan ka abuse garayne Xaliimo waxay ka ahayd labiskii iyo jiimkii nin jiimka aa kula kulantid iskuulka Xaliimo waxay u aadaysan nin aa kula kulantid Xaliimo shaqada waxay u aadaysan inay nin kula kulanto Xaliimo Farax markay baratay she quit and give up her life Xaliimo filinjeerkay fareen la noqotay she sleep in front of the fridge she open fridge and eat have a baby clean the house sleep hadayba clean garayso guriga waxa dhici karta Xaliimo inay xataa guriga clean garay markuu soo galo I don't know I'm not clean person by the way 100% me I don't believe dadka saaxiibaday dadka way dhahan like I'm not clean person runta idin sheega Xaliimo markay filinjeerka madaxa la gashay Xaliimo 400 pound ay noqotay teeda kale Farax wuxuu isticmaalaa mental game Xaliimo stress buu ku furaa Xaliimo stresska overeat bay ka qaadaa haddaan labada caagan ka hadla adinkeedin kama hadlooyaa I'm talking about this too Xaliimo cuntadii stress bay ka qaaday Xaliimo maray cunto maray jiifato teeda kale Xaliimo nolosheedii ayada disaster ka dhigtay laakiin ayadu waxay moodaa inuu Farax ka dhigay Farax noloshiisa waa straight Farax iyo adiga isku sariira ka soo kacdan see Farax saan u yahay Xaliimo adna saan u noqotay marka mi sheegi kartaa why Xaliimo why are you doing this to us why arooskiini waa ogeyn TikTok la soo dhigay Xaliimo you was this after that you become this Xaliimo why sometimes hada Xaliimo u naxariisanaya sometimes some Xaliimos they become like that but I don't want to do that because Xaliimo disan dhahaya marka haddadan Ilaaha idinku dhaarshay ma ragga gardaran mise dumarka ani dumarka ila gardaran because Xaliimo nolosheeda ayada mas'uulka ah jirkeeda ayada mas'uulka ah mentaligeeda ayada mas'uulka ah Xaliimo hadda Farax college isla aadi jirteen oo Farax college-kiisi ku weedan marka isguursateen Xaliimoy adiga Farax lagu ma dhalinay maxaa kugu kalifay inaad ku weed garayso iskuulkaaga mi sheegi kartaa why abay last semester ku jirtay 4 years aadaysay ma Farax dartiisa u aadaysay mise inaad noloshaada aad wax u qabsato haddaa u aadaysay Farax dartiis Kuwait college-ka laakiin haddaad u aadaynin Farax dartiis college-ka why u Kuwait Xaliimo why you did that abay go back to your school do that finish school Xaliimo hadda 2 jeer jiimka tagi jirtay Farax dartiis aday ku taala laakiin hadda adiga immune system-kaaga iyo calories-kaaga iyo body-gaaga u aadi jirtay you need to go because calories-ki aashale ka caradi jirtay mid ka badan kugu soo darsooma Xaliimo yes you dealing with someone else maybe you having a babies then you have to go more but 3 times markuu asaga aado waa ina dhahdaa listen to me come here you go 3 times gym 4 times aadaya because aniga more aniga am breastfeeding aan sameeyaa ilmaha marka you have to
ina ciyaalka la joogto afartaas bari aysan hayn haduu la joogi karina laa yukallifu lahu nafsan illa anaga gabdhaanaha anaga guriga loogu talagalay raggeena looguma talagalin Soomaa bahasha lagu ordo hadaa ninkaaga xataa uu shaqo culus ka shaqeeyaa u naxaysid bahasha lagu ordo ii soo gad aku leedahay gurigaan dhiganaya ma bixi karto Soomaa ilmaha 1 hour cunugaaga uu naab qaadanayo ku ordi kartaa xariga lagu boodboodo aan waxaan aqaanaa gabar caloosha iyo dhexda iyo kilkilaha iyo garbahaba isaga jartay xariga lagu boodboodo Soomaaliya aan ku ciyaari jirnay ciyaal ku ciyaari jireen ee isaga jartay marka adigoo a lot of convenient waxa leedahay xataa waxa jira gabdho oo waxa jira Soomaali ah ajnabi ah nooc walba ah magaaladeena degan hadda kale magaaladeena kale waxa degan Firdowso Gym Life degan waxa degan gabar kale to ayadana gymamka ma aragtay dadka barta gurigaaga waxa dhihi kartaa gabadha Soomaali oo muslim ah aawaysa waxa leedahay baay macaanay waa dhalay xoogaa hiliba ay koray waxa u baahanahay inaan training isiiso 24 hours gymana jiraan habeenkii waxa dhihi kartaa ilmaha kor iiga fiiri way hurdaan gabadhaas kala la balmi kartaa ama guriga keensan kartaa waxa dhihi kartaa tababar marka I don't understand why Xaliimo iyo Faarax after 2 years saan u kala noqdaan su'aashaas jawaabteeda ana hadda ku hayo Xaliimo you give up marka Faarax guursatay laakiin Faarax didn't give up Faarax noloshiisa adiga kuguma soo koobin laakiin Xaliimo adiga noloshaada Faaraxa ku soo koobtay shaqa ka shaqeynaysay hal cunug marka dhashid Faarax shaqadiisa ma ku weedo hal cunug u dhalay no taada ha ku weedin waa u yeeraysaa waa wada fariisanaysan familiatin hey Faarax you know we had a new baby yes shal labadeena ahayd maanta cunugan uu soo kordhay waa shaqeysaa meeqa bari shaqeysaa 5 bari ana 5 bari shaqeeyaa you want to give up your job 2 days no I don't want to give up my job either maxaan sameeynaa marka cunugan beejaygaagam ka soo jari kartaa 500 ana kayga 500 aan ka jaraa okay 8 hours aan shaqeeyaa let's handle this as adult people or America ku nool no Somali ku nool in lagu cilgudo shaqada iska daa shaqada marka iska daysid that is the only life you had maxaa sameeynaa marka okay Faarax marka maxaa sameeynaa okay cunugan adiga you not giving up adiga noloshaada cunugan ma ugu give up gareynays maaho ana ma ugu give up gareynay nolosheeda cunugina waa isla dhalnay okay let's do babysitter wa alaykum assalam marka qof assalaamu alaykum soo qorbay daway wa alaykum assalam wa alaykum assalam wa alaykum assalam saddex qof ay ahayn bay daway waxa la sameeynaa marka cunugiga la kaxeynaya daycare geeni Islamic daycares badan Minneapolis waxa jira newborn daycare cunugaaga Minnesota policy waa 6 weeks to 5 years daycare-ka 5 years kadib head start u aada ilmaha uma kindergarten u aada head start was 6 weeks to 5 years imagine so marka 6 weeks to 5 years haysata 6 weeks to 5 years haysata so wa marka umushi ka baxdid maternity leave shaqadaad lagu ogolyaa 3 months de ku ogolaadaan hada hooyo fiican tahay cunugaaga intuu ku adkaana guriga joogtirti 3 months kaas guriga iska joog after 3 months daycare ka soo apply garee geyso cunugaaga subaxdii markaa soo kacday shaqadaada aad gym soo mar danahaaga soo dhamayso cunugaaga soo qaado maqribadii gurigaaga imo odagaaga casho u samee raali u noqo odagaaga qanci biis ku noqo laakiin biisina ka noqo quruxdii shalay lagu raacay hadii ay dhamaato ogo mid kale oo la hal raacay maxaa la iga raacayna hadhoodin waa leela guursaday intaas alle waa leela guursaday yaa kula guursaday ina ku korso wuxuu ka baqay naqas ku xirto taas turu I'm sorry I love you guys gacanta iga dhacday kelmadaas ma ila uu ka baqay laakiin because it's too big for him laakiin hadda Xaliimo ay tasho I love you do that hada shaqadaada hadda ay fiirsanaysid oo ogay gabdho badan ay fiirsanayo oo shaqadaada aa ku widay please go back to your job hadii aad samaysay ii sheeg naftaada qalad badan aa ka gashay stop eating hadii aa ma aragtay Xaliimo by the way is my water Faarax finish Xaliimo I'm still drinking that means I still love you Xaliimo so do this marka gymka ku laabatid oo shaqadaada aa ku laabatid oo cunugina daycare aa geysaan
odagaagana time la qaadatid because daycareka haddaa cunuga 6 kasoo qaadaysa formka shaqada kasoo bax xataa laandheere iska dhig qof guri iska fadhiyo umada fiirinaya iska dhigin laandheere iska dhigin taa wacd hello hi babe where are you babe haddaa shaqada kasoo baxa can we have a dinner before ilma aan soo qaadin aniga adig yeah where intee ku kulanaa you can meet anywhere where are you qatar iska dhigno why are you sitting home and